السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقرأ على هذا وحبايا لما أنتم السلام يا أنت هن لايف كجرا بليس يعني سوعن أما جزيرها أما حلبانها واحد ضنطها هي سوعن أنا هوش هان ثلاثة سيد عضي وعود عضي أنا كتنا سلنا مرة أنا عله شيء أنا مرة فرح على قاب عد أرنت أنت سوى هذا قال هذا كرت مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لما أنت نورت أمد الصوماليات شعب الصوماليات ضدك حتى دعونا وأنا السلام يا dad badan oo idin kamid ah lama socon wixii maanta dhacay wixii hadda intii markaan live ku jiray wixii idinka dambeeyay intiina qofna ma oga intaan live ku jiro markii laga reebo inaan xanaaqo lagama yaabano mana doonayo in aan si gaar ah meel aan u taabto xanaf leh iga raali ahaada laakiin idinkana waxaan idin ka codsanayaa dulmiga qofka la dulmay oo dulmanaha garab siiya qofka wax dulmiyaha taageerina macnaheedu ma aha inaan aniga taageera idin leeyahay aniga ila jireen idin leeyahay laakiin mar walba waa inaad taas sameeysan Soomaalidu wuxuu ilaahay tawfiiqdan noo garamarsi waxa weeyaan waligan iyo allahan qofka la dulmiyo garab mas qofka dulmanaha waan ka helinaa wallahi way dhacdaa markasta hadda ma aha marar badan bay dhacdaa. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Markuu xaraab programkayga inaan guda galo meeshaas in maanta lagu bahdiliyaa ka dambeeyay يا مسؤول كها نمبر 1 هرت ماشي اسمانتي اللي بدل هلا بكوكا وانا غوريغا اسك جيفا وعي غوريغا انا جيفا حفلده كاله نمبر 1 اسقي خديجه نو سغايين اسقي خديجه ديرين وسيرد ku sheegta waxaan umad u sheegaya waa laba wajiile waxay adeegsataa awoodeeda waxay adeegsataa xildhibaanada iyo xasaanadeeda adeegsataa waana beenalay khasisada sababta idin sheegaya maanta hadda waxaa socda shir dhalinyarada la leeyahay shirka dhalinyarada la leeyahay waa lagu afduubay dhalinyarada xitaa speech lama siin intaan meesha tagnaa tusaale aan idin sheegaya bal aad ugu fiirsada hadalkayga aniga ma aha nin speech kama rab cid kale nama taageerayo waxaa kaloon rabaa inaan idin sheego dulmiga maanta la igu sameeyay waxaa la yidhi milkiilayaasha dalka anu maxaan ahay milkiilayaasha maxaan anigu marka milkiilayaasha dalka ma yihi dhalinyarada waddanka iskale ma yihi xasan cali khayr wasaaraha فرينتان أنا حسن على خير طبعا جربان بلناي رجع أسجل له جو ويديدن أنا لكلمه سبيشال أقولها هذي فريم ما ندري ويديدن يعني اتصال دي شيء جا نحن صاحبنا بقى واحد يسوق قري حسن على خير ما حد يقول شيء ويدي ما حد يقول شيء ويدي ويدي أرنت هساد عادي وحنقول حسن على خير أنا مرة وين أنا برتقال كعياره دنقارنا كمله ما ندور ينقول أنا وين أنا وحياة بس تدعو حي ما تدون يوم صوتنا دي شيء جا وسير الخديجة شركة واحد لو قبني دلنيرو Soomaaliya Soomaa ha Soohaman anigu maxaan marka dhallinyarada Soomaaliya markii fanaanimo laga soo tago waxay adin lagu ixtiraamo fanaanimadeedii qaranka Soomaaliya fanaanidu war haada 2 saacadood oo kaamila waa hobalada waa bari banaanka lagu bahdilayo taagneeyeen ayaga xataa waad weydiin kartaan banaanka lagu celinayay markii la dhahay fanaaniintii orado maxaa la si shar garay ilaahay baan ku dhaarshay markii la anigu gurigayga jif horta waxaan rabaa kow mar rabo dulmi سوى حد عم هربان دين شيء أنا كحفلة دسوان سوى عنا قبل قابض ذا نوانوجا قبل قابض ذا نوانوجا مركان ندلني هاي أنا كأنه ساك إسكهر ده أمين ظهر كي واحد سوى عني معه لا وسوى عبد عبديو مال بنتيرا والله في هذا الكاس وبنتي قفك أنا قاعد دليل سن معها سوي دي مال بنتيرا ولا لو قال ده هو بلد وبري بنان كلامه هيستاهل أرض حفلة أنت تكتو قال ده سحرة وايه ولا لبان كوري غاري يان قاتو حفلدي وان تغي وان حرس وان تغي marrumaysanaysan saaka markaan xilligaas aan hurdada ka soo kacay hadda markaan hal saac idin dhahay leey baan soo galay baa qado iyo waxaan cunay igu horeysay intaas oo dhan xafladii baan tagnaa meesha stage kan tagnaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo xaflada joogtay iyo dadka live ka daawanay kulli way wada dhaxarkeen meesha inaan joogay oo meesha tagnaa way wada jeedeen good waxaa dhacday marka xafladda markaan tagay oo meesha stage ka hayd nimcaan oo hawsh dhacday kooxdii adigu xiwaan xaroonay al-amuum mar raba inaan si kala qaado gudihii waan galay gudihii markaan u galay meesha stage kan tagay waxaan ku iri stage hala si share garay live kan halna madaxda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed hala si gaarsiiyo wadanka kadaata dulmi baa ka jiro dulmiga ka jira waxay tahay waxa weeyaan awoodda qofku hayo dadka waa lagu ciqaaba shacabka ciqaab baa lagu marsiiyaa qofka asagoo title iyo mas'uuliyad adeegsanaya buu qofka uu arko inuu ka awood badan yahay ama ka xasaanad badan uu ciqaaba tusaale aan idin sheegaya
meesha markay saas u dhacday oo meesha tegey nimco wuxuu yidhi kooxdan soo xareynaya gabdhihii barnaamijka daadihinaya dadka cusub baan u sheegaya gabdhihii barnaamijka iyo dadkii gabadhii barnaamijka daadihinaya waan wada aqaanaa hebel baan idin dhihi karaa dadka meesha jooga aan qof aanan garanaynin haba yaraatee ma jirto mid baan u garanayaa baan u garanayaa dadka meesha joogay waa la igu soo dhaway mikrofoonka ma rabo inaan kala qaadee khadiijo diiri way soo istaagtay jadwal bay soo qabatay waa beri bay tiri awey waa beri baa la yidhi mikrofoonka laga qayliyo waxaa la yidhi awey nimcaan hilaac waa loo yeedhay kooxdiisii iyo asagaba waa loo yeedhay way soo galeen waxaan ku yidhi de walaalo intay qoladan isdiyaarinayn dhaantadan adaa fankii mas-uulka adaa ilana yeedheen dhaantadan isxilqaan oo wadaniyadda aan ugu talagalay dalka iyo dadka iyo dhalinyarada aan ugu talagalay aan qaada baan ku yidhi khadiijaa kuu diidan aniga maxaan sameeyaa baan igu yidhi khadiijaa kuu diidan aniga marka su-aal baan isweydiiyey nin aan saaxiibo nahay baan u diray nin la taliyaasha ra-iisul wasaaraha ma raba inaan magaciisa aan message u diray waxaan ku yidhi walaalow khadiija saasay leedahay dhaantada asaga xitaa u dhageystay maxaan sameeyaa sug buuhi anaa la hadlaye dad warbaahinta ka mid ah xafiiska ra-isul wasaarahan haddana u sheegay waxaan ku yidhi aan maxaa la dhahay dhaantadan aniga rabo barnaamijka hala sii sheergaray baan ugu talagalaye ma qaadi karaa islaantuna way ii diidantay maxaan sameeya bal aad ugu fiirso waa intaanan masraxa wuxuu yidhi aniga ma garanaya naagtan makhaayadda ayadaa u shidan tahay ayadaa wadata anigu ma garanayo waxaan sameeyo stagekii baan u laabtay wallaahi oo waa bilaahi oo waa tallaahi biyahaas waataan aan cabay waataan ku go-an way soo istaagtay makhraatina dhalinyarada soomaaliya iyo dadkii meesha joogay iyo dadkii iga dalbaday inaan dhaantadaas u qaado kulligood goobjoog bay ahaayeen way sheegi karaan wayna arkayeen makhraati bay kaaheen qaarkoodna si shaksiyan bay hadda ila soo xariireen waxay dhaheen cabdi dhaanto siday kula dhaqantay khadiija apologies anaga kaa sinayna dheheen shaksiyadan aan kaa sinayna sababtu waxay tahay waxay dhaheen shirkan waxaa shi dhalinyaro soomaaliyeed si haddii loo firay fanaan soomaaliyeed baa tahay xaq baad waxaad meeshan ku leedahay inaad wacyigelintaada iyo wadaniyadaada dhalinyaradan taadato gobollada ka kala yimid inaad la sheer garayso ood la qaybsato waa waxaad xaq u leedahay waana arrin waajib qaran kuga ah walaal dhib malaan ku idhi anigu microphone xiiso uma qabo hadday heesataan noqoto 54 dowladood 58 dowladood oo madaxweyne farmaajo caleemasaarkiisiya oo adduunka dhan makhraati ka yahay baan soo istaagon ka heesay yacni waa masrax haddii loo baahan yahay haddii masrax loo baahan yahay hala sheer garay haddii masrax loo baahan yahay meeshaasaan kasoo heesay laakiin keliya muhiimaddu waxay ahayd dhaantadan cusub isxilqaana oo wadanka iyo dadka iyo dalka ugu talagalay inaan dadka iyo dalka inaan message ahaan dadkan aan ula wadaago khadiijo deeriya way soo istaagtay intay soo istaagtay bay tiri cabdi ka deg masrax stageka iiga deg waxaan ku uri maamu maxaa khaldan bal aada ugu fiirsa hadalkaas maxaa khaldan qof wasiiraa tahay xildhibaanad baa tahay nimcaan uu ag taagna u maqlaayay dadkii wiilashii qalabka joogay way maqlayeen dadkii kale oo meesha jooga ayagana way maqlayeen no waxaan sheegay wax beenu kuma jiraan waxaan ku uri nimse wax jiraan islaantan adaa isku fiican tihiin walaalow la hadal baan ku uri astakfirullah la hadal baan ku uri walaalow wuxuu yidhi islaantan programka iyadaa wadata hadhow baan la hadlayaa sug waa yahay baan ku uri haddana way soo saagtay waxaa tiri cabdi ka deg bay tiri masrax wallaahi wax kale imayna dhihi cabdi dhaanto masraxa ka deg bay tiri waxaan ku uri bal waayaa taleefon maa jaajar iga jiraan qaato ha qaadanna ka deg bay tiri anigoo ka duulaya sharaftayda iyo sumcaddayda ma aanan isku dayin islaantaas inaan la qabsado oon la tirsado madaxda hortooda na arkaan ra-iisul wasaarihii guddoomiyihii gobolka inayna arkaan raalli kamaanan ahayn dhalinyarada meesha joogtay oo taageerayaashayda ah inay ayagana ka xumaadaan raalli kamaanan ahayn oo inay arkaan sida la ila dhaqmay intay arkaan meesha buuq ka dhalato oo yacni islaanta tadaata ay kasoo horjeedsadaan raalli kamaanan ahayn hala sii sheergareeyo walaalayaal halna la sii gaarsiiyo ma fahamteen raalli kamaynan ahayn balaad ugu fiirso shib baan idhi waayahay baan ku ihi habar waan degayaa waxay ii raacisay halkan ma aha jigjiga bay ku tiri dhaantana loogama baahnee gowto jigjiga bay tiri oo halkaas dhaantada kusoo bandhig balaad ugu fiirsa hadalkaas meel ku qorta ma ahaba this not jigjiga bay ku tiri aan loogama baahna dhaanto markaasa waxaan ku idhi anigu yaanahay anigu waxaan ku idhi jigjigana may fanaan soomaaliyeed baan ahaye waxaan ku ihi hadalkaa aad leeda habarre iska sax masraxana waan ka degay balaad ugu fiirsa hadalkaas masraxana waan ka degay walaalayaal waxaan rabaa inaan idinla wadaago
ra-iisul wasaare xasan cali khayre tusaale idiin sheegaya wuxuu yidhi milkiilayaasha dalkaa tihiin anigu maxaan ahay marka milkiilayaasha dalka kamid mahi miya anigu dhalinyarada kamid mahi fanka soomaaliyeed kamid mahi dadka sugaantooda la dhegeysta kamid mahi heesaha meesha lagu soo bandhigay ayadaa samaysay murti ma lahayn wax murtiya ma lahayne xasan cali khayre lagu ammaanayay dalka hay 3 sano soo haysay haddana sii hay weligaa xilka hay wax saas ka hadlayeen balaad ugu fiirso waad dhegeysan kartaan haddii aniga aad waxaa laga yaabaa hadda inaad aniga daalacii raacsantiin ood dhihi kartaan cunugan ninkan taada muxuu la qaylqaylinayaa balaad ugu fiirso waxaa laga yaabaa hadda inaad saas leedihiin laakiin waxaan idiin sheegayaa waxaad sida la moodayo mise siday tahay tusaale idiin sheegay dhalinyaro soomaaliyeed baa soo waceen waxay dhaheen wasiirad khadiija dadka ay meesha ay isugu yeertay maha dhalinyarada soomaali ma matelayn waa dad ayada soo qortay waxaa jiraan ururo dhalinyaro organizationna ah oo xamar ka dhisan oo wasaaradda ka diiwaan gashan lacag baa laga qaaday lama casuumin lacag baa laga qaaday dib baad u ogaan kartaan lacag baa laga qaaday lamana casuumin soomada garan afgobaadsi iyo been iyo propaganda iyo qarac bay meesha la soo istaagtay soomada garan aniga sharaftayda iyo wax walba maanta soo gaadhay meeshaas waxa mas'uulka nimcan ilaa waayo ninka casuumay iska Soomaa fankan asaas ka lahaa ma aha inaad jilacsanaata dee raga ilaahay xaniyo ku yeelan nin raga fanka qofku markuu mas'uul ka yahay anigu waan ogahay nimcaan waa ninaan saaxiibana waa walaalkay aad baan saaxiibo isugu nahay kaloos baana waan isku dhownahay xataa meesha hadda agaasimaha hobalada waa bari u joogo dee aqoonku munan imaanina waxaa keenay nin kala dhahayo maareeyo abti oo qaraabo yihiin iyo habar khadiija ka shaqeey in loo keeno hobalada waa bari iyagaa mas-uulka oo meesha keenay right si fiican baad ifahmaysan Soomaa ayagaa keenay maantana deen meesha lagu bahdilay asaga ma mas-uulka ah fankan asaa mas-uulka ah Soomaa ma aha fiiri awoodaada inuu ilaahay kaa qariyo ma fanka markaad mas-uul ka tahay waa in anigoo cabdi dhaanta qofka maanta wuu dhihi kara sidaas iyo sidaas khaladkaas aan jiraan ma aha dee anigu 4 soo 2 xinood ragga male 4 baan leeyahay dee mana cabsanayo halkan live-ka kasoo tumi jiray gurigan waa guri kale ma ahayn asaga maan haddana deganahay dadka soo qorayo waa lagu dilayaa iyo waxbaa lagu gaadhsiinayaa waa inaad ogaataan anigu waxaan ahay fiiri waxaan rabaa message-kayga iyo fariinteedan inaydu sii share garaan oo idin la wadaagtaan madaxda qaranka markaan idin leeyahay waad ogtihiin maanta ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha dadka inay ayaga fiican yihiin dad maafiya inay ka sokeeyaan waad ogtihiin oo maafiya bal maafiya inay ka sokeeyaan waad ogtihiin ani nin ra'iisul wasaaraha kamid ah ee ragga la shaqeeya wallahi biyahaasan ku dhintaa baa wuxuu yidhi waxaan ku noo ra'iisul wasaarahan u baahan arrin aniga bareybadiya inaan u tago kala hadlo ilaa fanaan Soomaaliyeed fanaaninta kale oo qaabila oo u tagi jireen fanaaniin badan buu u tagay Soomaa aniga xaq baan nin wadankii jooga oo wadanka hawlaha ka jira shaqooyinka ka jira ka qayb qaatana dan waan ka yeelan karaa Soomaa sax ilaa dadku wasaaraha yahay ama madaxda u yahay baan kamid ahay Soomaa sax baan kamid ahay ilaa cid kale may waa hadii sida saxda loo dhigo hadii khalad loo dhigana kamid ma bihiba si kale hadii loo dhigo hala sii share gareeyo live-kayga wuxuu igu yiri xasan cali khayre waxaad wax ka weyday daarood maad wax ka weyday buu yiri markaasaan ku war anigu fanaan baan ahay nin qabiil meehi bal walaalow ceeb weyn waxaas iska daa farmaajo tag buu yiri iska daa xasan cali khayre waa taqaanaan hebel sawirkiisa haddaan idin la wadaago magaciisa haddaan idin la wado kulligii maad garanaysaan ragga howlwadeenada ra'iisul wasaaraha weeyaan bal ka waran waa xafiiskii dadka laga maamulayo dadweynaha dadka sidaas aaminsan baa qaranka ka shaqeynaya haddii la weydiiyo si sax la weydiiyo waan ka jawaabayaa hebel waan dhahayaa ma fahmaysan dadka message-ka qaldan gudbinaya aniga beenta iga faafinay kamid buu yahay wuxuu yiri orada farmaajo tag u tag buu yiri farmaajo orada u tag markaas waxaan ku yiri aniga maad taqaana waan isbaray runta idin sheegay waan isbaray anigu nin noocaas aan ku yiri la igama maqal dadkiina ni daawanayo 300 iyo 200 hadda daawanaya maanta waad ogtiin inaanan anigu ahaan shakhsi qabiil oo ololeeya markii laga tago kaftanka iyo riwaayada iyo waxyaabaha sida kaftanka ama kama iga dhac marka laga tago waad ogtiin xamar iyadoo xabad iyo dagaal iyo wax walba ka socdo inaan idin soo gudbiyo image fiican oo ah dalkiina inaad ku soo laabataan oo dhisataan laakiin dulmi iyo waxaan ku noolahay iyo caqabad iyo waxaan ku noolahay rafaad waan idin sheegayaa ma markii dal iga leeyahay in la soo wacde anigu ma baahna hadda kale in la soo waco ma fahmaysan ninka xafiiska baraha minister ka shaqeeyo
oo idhahayo orado xasan cali khayraad maxaa lahay farmaajo daaroode u tag maxaad ka sugaysaan tusaale idin sheegaya yani simple waxaan rabaa anu ina qabiil ma doonayo laakiin waxaan rabaa inaan wax idin fahamsiiyo maxaad ka sugaysaan yani qofkaas capacity-giisa intee leegyahay taagan yahay magaciisa waan idin sheegaya waa taqaanaan xataa habeenka iyo waktiga iyo dadka ila taagnaa way wada joogaan waa la garanayaa hebel hala sheergaray hana la gaadhsiiyo fariintan dadka waxaas ka shaqeynaya qabiilka aaminsan waa laga gudba xilliga qabiilka dhalinyarada Soomaaliyeed dadkii meesha fadhiyay iyo dadka aniga aan wax la barto waxna la soo bartay ma aha dad qabiil aaminsan xamar ma aha meel qabiil laga yaqaano laakiin dadka inuu hogaamiyo hadii 4.5 iyo qabiil ay ku dhisan yihiin anaga dhalinyarada xilligaas waan ka gudubnay caqabad kasta iyo rafaad kasta dadka Soomaaliyeed ay maraan waa laga gudbi doonaa hadda qabiil aaminsan yihiin nin aan qabiil aaminsanayn baa imaanaya kuwan waa la shaqeynaa kuwa soo socdan waa la shaqeynaa bal hadalkayga waa inaad si fiican u fahamtaan meesha aan ka hadlayo balaad ugu fiirsada aniga tusaale idin sheegaya mar rabo inaan dadku xadgudbo shacabka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waan ognahay Khadiija Diire waxay tawaad ogtiin gudoomiyaha gobolka abti waxay hadda abtina gudoomiyaha gobolka waxaan rabaa inaan u sheego Umar Finish islaantaas maafiyada inuu iska jiro hadda anu sheegaya waa inay heshiis u dheeraato Khadiija waa maafiyo waa inuu iska ilaaliyaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waa nin sharaf leh Umar Finish waa nin dadkan u soo halgama islaantaas ha iska ilaaliyo dabanadii qoleys Khadiija Diire wajiba isticmaasha balaad ugu fiirso naag waji isticmaalayso weeyaan naag diin haysata ma ina kuftamo xataa uma maleena salaada inay tukato ma maleynaayo ana I don't think inay arintaas jirto waayo qof mas'uul ah xildhibaan xasaanad leh intuu soo istaago fan ma soo dhaxgaleen oo sharaftiisa karaamadiisa ilaalinaya afahmin inay dhimanayso soo ogtay way ogeyd Cabdi Dhaanto markay u diidaysa meesha inay balaaya ka raacayso madaxda qaranka Soomaaliyeed baa rabaa markaa inaan fariin u diro fariintaydaas waxay tahay sidaas ka daaya walaalayaal sidaas ka daaya anagu dhalinyarada dadka hogaamisan baan kamid dadka lama kala saaro dadka idinku dhax jiro qabiilka aaminsanna looma baahna inay dadkaas oo kale ay shaqo sii wadaan waan ognahay inay xumayn oo dad fiicantii laakiin dad ma fiican idinka hooseeyaan oo idin la shaqeeyaan waan ognahay taas idinkuma nacayno laakiin jaaniska anaga ayaan sugaynaa marka waxaa weeyaan dadka qaar waxay soo qaraan heeso walaal anu haddaan heeso xataa xaq baan u leeyahay fanaan baan ahay dadkaas Soomaaliyeed ee shacbiga Soomaaliyeed inaan suugaanteeda la wadaago xaq baan u leeyahay ma ahan wax waan waajib igu qotoma balaad ugu fiirsada aniga ma aha in lagugu shaqeysto isticmaar inaad noqoto sida gondobka la gashanayo oo one time use ma aha inaad noqoto gondob ma noqonayo anigu ma noqonayo midka gondobka la isticmaalayo la gashta ma noqonayo anigu hal mar baa la isticmaalaa Sooma aniga saas ma ihi wala fiirso Khadiija Diire waxay waxaa jira koox la danan oo fanaaniina oo waxaa jiraan ayada ay heeso sameyn jirtay way ku shaqeysatay masrax ay ku soo saartay hadda waxay sameysay hobalada waa bari qayb kamid ah nimcaan iyo tiim isku fiican bay sameysatay ayaga waata anigu waliga meel joogtana kama heesayo dib oo dameeyeen ugama heesayo inaan habartaas u heesana ma rabo islaantaas haska mirqaankeedii hawsheeda iska wadato anu ma rabo laakiin ana dhalinyarada Soomaaliyeed tirada shir baan u qabanaya dhalinyaradiina ay kala saarto oo si khaldan iyo qabiil iyo wax kale ay maxal lahayay ay adeegsato sax ma aha dadka soo qoraya Khadiija Diire waa maamo hooyada oo kala hadday tahay maxay iga xishoon weyday wiilay dhali kartaan way dhali kartaa maxay iga xishoon weyday walaalayaal hala si fariintan hala si share gareeyo waxaan rabaa wax walbo inaan idin la wadaago go'aan waxaan ka gaadhoon idin sheegay hadda kahor life dambe inaan soo galeyn dad dambana aan la dagaalan ka fadhiyay ra'iisul wasaaraha fadhiyay golihiisa wasiirada fadhiyay labada aqal baarlamaanka iyo aqalka sanadka fadhiyay kulli wala wadaarkay laakiin arrintan inay si hoose ula socdaan ma umaleynaayo haddii ay xitaa ay ogaayeen kolley ma laga yaabin inay saaso waan damcay ra'iisul wasaaraha inaan la wadaago ku dhado adeero sidaasaa jirto dadka aad matasho ra'iisul wasaaraha tahay baan kamid ah dhalinyaradan aad rabto inaad khudbayso ayaan kamid ah nin waliba talentigiisa iyo wuxuu Ilaahay si gaar ah uu hibo u siiyay
ayuu muxuu lahay shirkan iyo dhalinyarada iyo wacyigelinka dalka uga qayb qaadanaya bilaad ugu fiirso wacyigelinta dalka uga qayb qaadanaya anigu wacyigelinta dalka waxaan rabaa inaan uga qayb qaato waxaan rabaa wacyigelinta dalka inaan uga qayb qaato suugaanteyda ilaana taasaan hibo u leeyahay bilaad ugu fiirso anigu alxamdulilah nolol fiican baan ku jiraa ma ahan anigu inaan lacag u baahanahay lagama weynayo ma hadda jeebkayga lacag haddii laga fiiriyo ma fahmaysaan laakiin wallaahi oo tuma wallaahi oo tuma wallaahi xasan cali khayre ha la gaadhsiiyo anigu khalad kasta iyo dulmi qof lagu fiirsanayo ma aqbalayo soomuuna lahayn ma aqbalayo inay nacabsi geliyaan qabqablayaal iyo maxaa lahay dad mucaarada oo qawlaysataa anigana ma aqbalayo khadiijo oo kale ma aqbali doono habar khadiijo diiriyo oo kale ma aqbali doono iyo dad maafiya oo iyadoo la halmaano ma aqbali doono haddaan u sheegaya xilligii la dhihi jiray cabdi dhaanto this is no jigjiga ma aha waa gobol soomaaliyeed ma diidayo oo la yidhahdo cabdi dhaanto jigjiga oo laygu takooro for example ma diidayo mala sooma waxaan ahayna ma garanayo sooma ma diidayo raalli baan ka ahay laakiin inaan ka jawaabo oo dadka xun aan idinla wadaago ninka xafiiskii wasaaraha qaranka ka shaqeynaya ku dhahay orda farmaajo daarooda u tag ka waran waa hebel 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 waad garanaysaan hadday xaaladdu sii xumaatan waaba idinla wadaagi doonaba ha ka welwelina waan idinla wadaagi doonaa ballan ilaahan ka qaaday ma fahmaysaan ma aha inaan qaraarsan aniga xasan cali khayre 10 jeer baantaan message kala hadlo ila ballamay la ii diiday oo maxaa la dhalinyaro asaga la shaqeeya ay ii diideen weligeena kama dacwoon live na kama soo galin oo la yidhi orodo maxaa la farmaajo u tag bal u fiirso 10 jeer baa la yidhi laakiin ma doonayo anu hadda inaan arrintaas aan arrimahan oo kale inaan uga faa'iidaysto ma doonayo diyaarna uma niyo sheekh sharif tuma wallahi marka waan idin ogahay dhalinyarada soomaaliyeed markii laga reebo dad yar oo qurbaha jooga oo qabiilku madax uga jiro marka laga reebo dhalinyarada soomaaliyeed oo xamar jooga anigu weligay yaallahay xamar waxaan joogaa 11 sano mise 12 sano baan magaalada muqdisho ku noolahay noloshayda intaan iskuulka dhiganayay intaan jaamacadda dhiganayay weligay maanan arkin qof la yidhahda cabdi dhaanto reerkee tahay qof dhalinyara sharafta dhalinyarada xamar ay leeyihin mar kastoon meel tagana xamar wax laga sheegan waxaan ku difaaca dadka xamar dhalinyarada xamar joogaan qabiil ma yaqaanaan mar kasta saasaan dhaha way ka bogsadeen qabiil xilligii dhalinyarada soomaaliyeed lagu waxaynayay ma yaqaanaan laakiin waan ognahay systemka dowladeena inuu ku dhisan yahay 4.5 ma diidi karno waa qabiil shaqada la isku geey waxaan rabaa mar kale digniina inaan bixiyo islaantaas maafiyada gudoomiyaha gobolka ha sooga jiro ninka le Cumar Finish ha iska jiro waa maafiyo naagtaas waa maafiyo waan idiin sheegay ma fahmaysaa ha iska jiro sababtaan u leeyahay ha jirto anigu weligay yaallahay nin wasiir ama xildhibaan oo intaan live soo gal ku dhigan maartay maya soo maaha laakiin kursiga dadka ku fadhiyo qabiilka adeegsanaya naag wasiirada oo intay stateka xildhibaanada xasaanadna intay soo baxday stateka fanaan ugu tagay soo dhaysay orada iga deg meeshan jigjiga maana ma weligii maad aragteen taasoo kale hadalka ilaa aanan ka seexanayn oo calooshayda ilaa hadda aanan ka bogsanayn waa ereygaas halkani jigjiga ma ahane dhaantana loogama baahnaba igu tiri iyo alxamar guuleysta sharafaad leediin wallahi hana ogolaanina dulmiga ereygaas ma iloobi doono weligeena ma iloobi doono ma fahamteen ma iloobi doono dadkii isoo wacayaniyo iga raalli ahda dadkii isoo wacaya ma iloobi doono waayo waxay ka qaaday leedahay khadiijo diiri ana waxaan ka qaadan leedahay sheekh fahmaysaa aniga ma doonayo waxyaabaha qaar inaan ku hadlo waxaan raaligelin buuxda ka bixinayaa erayo galabta markaan life ku jiro aan xanaaqsanaa galabta markaan life ku jiro hotelkay ku jirtay hoostiisu gaarigaygu ku jiray gaarigaygu meesha ku jiray aan life uga jiro wallahi been idinma sheegayo haddana gurigaygaan imid cabsi aan cabsida ilaahay ahayn mar hore waad ogeydeen 2017 dadkii ila socda ogyihiin cabsi aan cabsida ilaahay ahayn uma dhiman doono insha allahu tacaala cabsida ilaahay maan u dhiman doonaa cabsi bini aadam uma dhiman doono soomaadaa garan uma dhiman doono sharaf iyo karaamo dhalinyarada xamar guuleysta sharafaad leedihiin
way ka xumaadeen maanta dhalinyaradii meesha jooga aad ba uga xumaadeen bannaankayga wada daba yimideen kulligood qaar baa ooyo yidhi cabdi raalli ahow waan ka xunnahay waxaan oo kale wax walba indhaha nagaan u jeedno waanu arkaynin raalli noqo way igu dheheen waa yahan ku idhi waa yahay waan ku idhi wax kale ma dhihin ha waa yahan ku idhi raalli baan idinkaan ku idhi waana idin wataa baan ku idhi kuwa xitaa Facebook kusoo qoray ayada taageersanaa waxaan ku idhi raalli baan ku ahay inaad aniga wax iga soo sheegtaan fahmaysaa laakiin waxaan idiin sheegayaa dhalinyarada gobollada ka keentay oo ayada ay keensanto meesha ku wada jiray sharaf iyo karaam ay leeyihiin dulqaad adag bay muujiyeen saacado badan bay maanta meesha ku jireen ya ما فهمتين raalli ahaada naftaa ku saxday marka arrimahaasoo dhan baa walaalayaal jira arrinta markay halkaas marayso waxaa idiin sheegayaa khadiijo agaasimaheedii maaliyadda dee wuu is dhiibay kanaduu iska dhiibay seminaar baa loo diray muna soo laaban ha soo noqon bay ku tiri walu fiirso agaasimaheedii maaliyadda soo ogaada qof hadda message ahaan igu soo diray kanaduu iska dhiibay kanaduu iska dhiibay kanada ma fahmaysaa kanaduu iska dhiibay taas laakiin aniga ima qusayso wixii is dhiibay wixii wasaaraddeeda ka shaqeeya aniga ima quseeyaan laakiin ayada say la dhaqanta ay qusaysa aniga waana socon doonaa lifekan saanu u socon doonaa gaf bay iga gashay way ii gaftay khadiija deeriya way ii gaftay makhaayadaas hadday kuu shidan tahay annagana makhaayadana noo shidan makhaayadaas hadday kuu shidan tahay annagana makhaayadana noo shidan waa ka xuma anigu dee caawa intaan awooda intaan xaggan ka taga xasan cali khayr intaan u tago aan dhihi karo waa dulmigaasa laygu sameeyey meli soo ma ilaana waxaa ka sokeeya raggii yidhi orado farmaajoad aad isku reeratihiin u tag ninkaas aqoon imuun lahayn raggaasaa jooga soo ma raggii yidhi orod u tag ma farmaajoa ku deeqi waayo dadkaasaa meesha jooga dadkaas ayaa meesha jooga waan ka rajo dhigay anigu ma fahmaysaa laakiin anigu cidna ma rabo inaan taagarayo fankayga iyo hawlahayga ma rabo inaan ka baxo qofkii fankayga iyo hawlahayga igu yimaadana waan iska dhicinaya ilma adeeryaal walaalayaal hala sheer gareeyo anigu waxaan diidanahay waa dulmi un qof idinkeedin kamid a ilmihiisa hooyadii waalidkii in la dulmiyo cidna raalli kama sidaad idinka aydaa raalli uga ahayn baan aniguna raalli uga ahay sida ayda idinka raalli uga noqoteen in qof la dulmiyo agtiinana wax lagu dulmiyo baana aniguna raalli uga ahayn weligay qof meel lagu dulminayo ma istaagin qof meel lagu dulminayo haddaan arko kumaanan fiirsanin qof la dulminayo haddaan arko kamaanan tegin oo dulmiga kumaanan fiirsan anigana ma jeclin in la dulmiyo waalidkayga xataa weligay maynan canaan adduunka canaan baan ugu nacba markaasa islaan iska falalaxda intay soo istaagto bay tiri cabdi dhaanto ka deg stageka meeshan jigjiga maahane dhaantana loogama bahnay orodoo jigjiga orodoo aad malo fiirso anigu wax walboona anigaa isu ah haddaan xumaayo haddaan fiicanahay qaran haddaan ku xumaado balo fiirso hadalkaygaas haddaan xumahay iyo haddaan fiicanahay haddii aan qaran ku fiicnaado qabiilka iyo dadkan ka dhashay baan u fiicanahay runtaan idii sheegayaa waan ogahay maanta wax walba qabiil iyo qabyaalad bay noqdeen anigu qabiil waxba kumaana noqonin qabyaaladna waxba kumaana noqonin nin dhalinyaro soomaaliyeed oo khaasatan xamar dhalinyaradaas iyo dadkaas bulshadaas iskala noolaa oo dadkaas fahmay baan ahaa dhalinyaradaas iskala noolaa haddana ayagaa iskala noolaanaya wax iskala barta iskala jaafaysa iskala alaalaysta hawsheeda loo wata haddana hawsheedaan iska wadanaya ma ihi qof hadda u joogsanayo khadiijo deeriya hadalay tiri maxaa la dhahay ka awooda badan oo kalaan dheeraysan baanan waxba ka maqlaynin ayada oo maxaa la dhahay islaan miskiin oo dadka laga tirada badan yahayba maxaad iska badaaba ayada taas micno weyn kuma fadhido ima sii kuleylinaya dadka laakiin waa inaan la wadaago meesha waxay ku hayso inaan idin la wadaago taleefano diri doonaa kulligood waan ka jawaabi doonaa
qof kasta oo ii maleeyana dulmi wadana uu ila hadli karaa wuxuuna idhihi karaa waxaasaa dulmiday waxaasaana samaysa waad khaldan tahay waad idhihi kartaan laakiin ayadana khaladkeeda u sheega haddii aad dad soomaaliyeed oo xalaal aatiin arrintaas aan ka arko social media islaantaasna ha aragto inay waxay ugu sameynayso waxay khalad ah inay khalad ahaayeen waa la wada maqlayay marka saasi dhahaysay nimcaan la maqlayay kooxihii fanaaniinta hobelada waa beri way maqlayeen qoladii farsamada meesha fadhiyay way maqlayeen dadka xafladda fadhiyayna makhraati way ka ahaayeen inaan meesha taagnaa in xataa magacayga la sheegay oo la ii yeedhay oo la yidhi hobeladu waa beri xataa ma joogto banaanka ku maqayna cabdidhaanta loo yeedhayaa way maqlay laakiin anigu iyada uma qabanayo ma ihi qof waxyaabahaasi wax lamida ay xadidaan cabdidhaantu waa kaa taqiineen qof kale maaha layma bedelin 2 jeerna layma abuurin weligay wax aan go-aansaday kama laaban mana istaajin maaha inaan isfaaninayo laakiin waxaan ahay waa inaad ogaataan cabdidhaantu qof caga juglayn iyo been iyo orada meeshan ka tag lagu celinayo ma aha ma ihi keliyo nin fanaana aniga ma ihi anu qof wax bartaanahay nin anshaxa bini aadantinimada xushmada qofka kaa weyn iyo ixtiraamka qofku kugu leeyahay nin fahamsan oo aqoon ahaan wax u fahamsan baana ma ihi laakiin qof yani jaahilo wax alla wixii aqligiisa kusoo dhac sheegay ma ihi xaasha waad wada ogtihiin dad badanna way garanayaan xaqu ha shaqeeyo xaqa iyo cadaaladda ha shaqeyso shacabka soomaaliyeedna makhraata ka hadaan waad ogtihiin caqabada iyo rafaadka xamar aanu ugu joogno inaanu waddankanaga aanu idiin soo gudbano wax qurux badan makhraatibaad ka tihiin wadaagno xamarad ka tihiin makhraatibaad ka tihiin meelana ugama socono qof hadalkiina maalintay taayada dhammaato un baanu meeshan ku ofinayna ama dana kale aanu uga tegi doono laakiin waxyaabahaasoo kale uma istaagi doono qof fahamka sidaas ka ah laakiin maanta qofka aqoonta le maaha ma aha qof xaqa inuu ka gabado especially qofka mas-uulka ya anu fanaan baana sooma fanaan soomaaliyeed baana suugaan baan ka shaqeeya sooma meel kasta iyo xaflad kasta waa layla waca sooma waa inaan idin sheega de qofka la takoorayo qofka la dulminayo qofka beenta la sheego qofka la dulminayo waa inaan idinla wadaaga oo idin dhaha qofkan dulmi baa lagu hayaa ee soomaaliya raalli ahaada qofkan mas-uulka madaxdooda matale waxaas sameynaya khadiija diiri waxaan leeyahay anigu makhaayadda wasaaradda kuguma haysto hawshaada wado raalli baan ka ahay raalli anu kumaanan keensan xasan cali khayraa ku keensatay xasan cali khayraa u shaqeysaa ana xataa iima shaqeysid kuma imana matashid aniga waayo waxaan ogaaday xasan cali khayr markuu dhahayo milkiilayaasha waddankaati waxaas inay beentaan ogaado wallahi been anigu dhalinyarada maahi dhalinyarada milkiilayaasha waddanka mahi saasaa ii soo baxday mihi anigu dhalinyarada ee dadka la soo aruursaday wax loo sheegay bes baa waxay milkiilayaasha dalka dadka la soo aruursaday oo wax loo sheegayo oo la qoray oo listiga lagu soo geliyay bes baa waxay milkiilayaasha dadka ma ahan anigu inaan hadda aan cid gaar aan taageeranayn laakiin xaquuqdayda iyo xuquuqda dhalinyarada aniga ila midkaan hadli karin baan rabaa inaan halkan ka sheego waanahay anigu dhalinyarada meeshaan kamid ahaa waana matala xataa haddii dhalinyaranimadooda le aqoonsan waxaan ku matalaya kaalinta fanka ayaan ku mataliyay kooxihii fankana way joogeen agaasimihii fankii sugaanta hobelada waa beri baa joogay falo fiirso baa joogay ma umalaynaysaa waxaasoo dhido iga dhacayo haddaan dulmi laygu sameyn inaan iga dhici lahaayeen rafaadkaasoo dhan inaan ismarsiin laha ma umalaynaysaa waa may ya waxaan cuna maana waayin waxaan cabo maana waayin gurigaa v i b dan dhex deganahay gaariga v i b dan wataa maanan waayin laakiin dhididkaasoo dhan wuxuu iga dhacayaa aada ujeedaan waxaasoo dhidid wuxuu iga dhacayaa dulmiga aan indhahayga ku arkay 1 2 3 4 maanen oo madaxda qarankan ay goobjo ka ahaayeen dulmigaas baan maxaa la dhahay ka xumahay oonan raalli ka ahayn dulmigaas ayaana raalli ka ahayn kolley way daawanayaan fariinteydana way gaari doontaa hana la sii gaadhsiiyey hana la sii sheergareeyo mar labaad iyo mar saddexaad wixii gaf oo iga dhacay hay qabanina nin xanaaqsan oo la dulmiyey oo la soocay oo qof xasaanad oo xildhibaan iyo wasiirnimo isku wato intuu usoo istaagay stage ugu yimid uu soocay baan ahay oo si khaldan ula dhaqmay
marka ilmaadeer walaalayaal dhan kastaba taageer ama ciddaa rabto taageer anigu waxaanay dhexdhexaad fanaan baanahay fankayga xadkiisa iyo xuduudkiisa kama baxayo hana lasii sheergareeyo barnaamijkan ha lasii sheergareeyo kama baxayo laakiin walaala dulmiga soomaaliyay dulmiga qofka la dulminayo ee ka wax dulmiyeedu garabka siinaysaan iska daaya intaasaan rabaa inaan idin sheego bas waan arkay marar badan xataa goobjoog baanu ahaa qof wax dulminayo kii dulmanaha ahaa loo hiil garab laga siinayo oo kii wax dulmiya garab la siinayo waan arkay anigu caan dhalay baan ahay codkayga meel kastuu gaadayo waan isdifaacaya waxayga waan dhacsanayaa laakiin dad waxaa jira intaas aan awoodin sax ma awoodaan de ma awoodaan waan ognahay hebel waanu aragnaa haddaan rabo inaan ceeb sheego on ceebo shiro oon rabo inaan ceebo ka shaqeeyo taleefonkayga waxa ka buux waa ceeb kumanaan ceebood baa ka buuxan haddaan rabo inaan ceeb sheego iyo dad inaan dhaleeceeyo wax ka sheego laakiin ma doonayo arrimahaas wakti bay ahayd waana joojiyay inaan dhaleecayn iyo ceeb kama yaabano inaan dulmi ka aamuso waxaan idinka ballan qaadayaa arrintan wax walba oo kasoo kordha ballan baan idinka qaadayaa inaan idinla wadaago ballan ilaahay baan idinka qaadayaa taas ballan ilaahay baan idinka qaadayaa waxaan cabdidhaantu wuxuu yahayna waa la ogaanayaa bawdadaa lasu garaacanaya saaxib huis cabdidhaantu wuxuu yahay waad ogaanaysaan haddaan kor saas ugu kaa jawaayo dhalaana waad ogaan doontaan kor haddaan u kaa jawaayo oo maxaa dhahay caana ka lisi waa sankooda cid alla ciddii isku kaydayda aniga inay maxaa dhahay programyada hawlahayga faraa gashato marka kolley hawshu saasa u dhacday wasiiradaas maanta saasay samaysatay arrintaasna kolley wayd ula socon doontaan wixii kasoo cusboonaada kolleyna dee anigu waxba cabdidhaanto dad badan baa dibadaha iyo meelo badan oo kala duwan iga soo wacay hayga welwelin anigu saad moodeysaan may waa inaad ogaataan anigu balaayo ma qabo dhibaatana ma jirto cidina qori iguma hayso cidina ima dulmiso cidina maxaa la dhahay ima dulmiso waxaan ka wadaa iguma soo xadgudubto cabsidii hadda aniga aan ka cabsi qabo inay wax soo gaadhaan hadda xilligan ilaa iyo hadda waqtiga aan idinla hadlayo inaan ma jiraan waxaan hadda dareemayo oon ka cabsi qabo ma jirto cid aan ka cabsi qabo hadda in aniga wax soo gaarsiinayso wixii un qadar rabi mooyeen ma jirto taas laakiin fariintayda gaarsiiya ummadda soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed dadka dulmanayaasha fariintan tadaata hala gaarsiiyo dhalinyarada soomaaliyeed ma aha dad ay khadiijo diiriya soo qorqortay oo ay qol kusoo xareysa maaha dhalinyarada soomaaliyeed 57% boqolkiiba 75 waa dhalinyaro qolka waxaa lagu soo xariyay waad ujeedeen dadka lagu soo xariyay waad ujeedeen soo maha lagu dul khudbadeynayay waad ujeedeen dadkaasoo kale iska jira ma hadli karaan way dulman yihiin annagaa idiin hadlayna adeer don't worry ha ka cabsanina annagaa idiin hadlayno codkiina anaa ku hadli doona insha allah ha ka cabsanina taas hawshana way soconaysaa de saan u soconaya dagaalkan ma joogsanayo qofna kuguma qasbayso saaxib haddaad maqal waad iska bixi kartaa qasab kuguma inaad lifekayga daawato de haddaad igu qanacsanayn waad iska bixi kartaa jaw anuma anaa ku qasbaya dadka lifekayga daawanaya qofka ani rabin de iska baxo muxuu lacagta sooga dhamanaya waqtiga anigu dadka soomaaliyeed oo isbedelka doonayaan la hadlaya anigu dadka isbedelka doonaya oo dulmiga diidan baan la hadlayaa marka ciddii iska caytamaysa ciddii hadlayso waa free waxaad rabto waad sheegi kartaa laakiin dadka maskaxdooda saliimka iyo aqligoodu uu shaqeynayo baan la hadlaya anigu cid kale lama hadlayo ma fahamtiin marka aad baan idin salaamayaa hawshu sidaas oo ula soconaysaan meseedkana hala sii faafiyo khayr badan baan idiin rajeynayaa wabilaahi tawfiiq